Ku soo dhawow Somali Voice in Norway. Marka ugu horreysa ma noo sheegi kartaa magacaada, khibradaada iyo magaalada aad kaga nooshahay Norway? magacaygu waa Axmed Cabdilaahi Cilmi waxaan deganahay magaaladan Bergen la dhaho waxaan ahay arday magaaladan ku sugan. Maxay tahay fariinta aad aabayaasha Soomaaliyeed u marinayso Somali Voice in Norway? aabayaasha Soomaalida Norway ku nool waxaan fariintan u dirayaa waxa weeyaan marka ugu horreysa waxa la dhahaa aabayaasha Soomaaliyeed shaqo badan ma qabtaan oo wax badan baa lagu eedeeyaa laakiin waana marka ugu horreysa la xuso inay shaqo muhiim ah hayaan inay aabayaasho dhan ahayn kuwa ciyaalkii yasay ama si fiican u taageerahayn laakiin inay jiraan aabayaal badan oo shaqo wacan haya taas waxa weeyaan muhiim ina marka ugu horreysa la xaqiijiyo kalena waxa weeyaan ubadku maxay ahaydey waa aakhiro ubadkuna xaggay ku dambeynayaan aakhirana waa lagu weydiinayaa marka waana waajib adiga ku saaran inaad ubadkii la socotid dhanka iskuulka dhanka maxay ahaydey hadday noqoto kubadda marka dadaalka kuwa si fiican wax u wada sidiina ku wada kuwa ogna inay wax ka dhiman yihiinna waxaan ku oran lahaa waa ubadkiinniye u dadaala. Maxay tahay fariinta aad Somali Voice in Norway u marinayso hooyooyinka Soomaaliyeed? maamooyinka Soomaaliyeedna taa in leegun baan ayagana oran lahaa dadaalku kuwa wacan wada way og yihiin kuwa dareemaya inay meel ka yara liitaanna iska soo henjiyaan haddii la isku daro marka dhinacna aabayaashaynu ka hadalno dhinacna maamooyinka muhiimku laakiin waxa weeyaan in labaduba ay wada shaqayn ay sameeyaan taasaa muhiim ah. Maxay tahay fariinta aad Somali Voice u marinayso dhallaanka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed? fariintan u diraya dhalinyarada waxa weeyaan marka ugu horreysa bulshadana ku nooshiin la jaanqaada waxbarta dhinacna idinkoo dhaqankiina iyo diintiina iyo afkiina ka ilaashanaya hamilmina in qofku uu integrating sameeyo oo bulshada la jaanqaada taas kama macnaha inuu dhaqankiisa iyo afkiisa ka tagayo labadaba isku balance gareeya idinkoo bulshadii la jaanqaadaya afkiinii iyo dhaqankiinii iyo diintiinii ka warhaya oo labadaba isku dheelitira ta kalena waxa weeyaan haddii aan saddexdaba waalidiinta iyo dhalinyaradaba haddaan isku keenayana waxaan oran lahaa dhalinyaro waalidkiin inkastoo ay noqon karta inay waxba baran idinkay bayna dhaleen marka talooyinkayna siinayaan waa talooyin idinkayna anfacaya talooyinka waalidkiin ka qaata aad baa u mahadsantahay.